haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo wararkii ugu dambeeyay dhowr iyo toban beri kadib madaxweyne farmaajo oo ku laabanaya Eritrea isla markaasina fadeexad weyn oo soo food saartay safarkiisa maadaama mar dhow oo kaliya uu ka yimid Asmara dalkaas Eritrea isla markaasina saaka oo si degdeg ugu baxay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dalkaas Ethiopia oo tagay Asmara isla markaasina shirki saddex geesood ka bilaabmay dad badan ayaa faral ka soo celiyay ma aha markii ugu horeysay safarkii ugu dambeeyay ayay ahayd markii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku tixan filla Soomaaliya dhankeeda social media ayaa boqolaal qof oo Soomaaliya aragtay kadib isla markaasina si weyn u cambaareeyay ayadoo la dhahayay dad badan ayaa gaajo ugu dhimanaya asigana safarkii ayuu bari hadda ayay ka daran tahay safarkii hore ayaa si aad loo cambaariyay isla markaasina dad fara badan ayaa eedeymo u jeediyay isla markaasina meydadkii dhaawacyadii labadii qarax ee halkaas yaalay ayaa halka isbitaalada yaalay hadda ayay ka daran tahay dhowr iyo toban beri kadib ayuu mar kale ku laaftay madaxweyne farmaajo isla markaasina fadeexintii waaweynay iyo mucaaradkii ayaa soo butaacaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa saaka safar degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Asmara ee caasimada dalka Eritrea isla markaasina mucaaradkii ayaa iminka eedeymo xooggan kala dul dhacay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha aadan cadda ku sii sagootiyay mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne Farmaajo filla Soomaaliya ayaa ujeedka safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku sheegtay inuu la xiriiro kulamo uu Eritrea kula yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Asiyaas Afwerki iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed wararka ayaa sidoo kale sheegaya in shirkaasi saddex geesoodka ah looga hadli doono xaaladda gobolka iyo dhameystirka iskaashiga Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea ayaa yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay shaaciyay in qabsoomidda kulankaani wuxuuna tilmaamay inuu la shiri doono madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo sidoo kale dhankooda dalka Eritrea si Afwerki isla markaas halkaasi shir xasaasi ugu socdoono Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ayaa ku jira isbahaysi saddex geesood oo ay dhisteen balse ilaa iyo hadda aysan jirin wax tallaabooyin wax la taaban karo oo uu qabtay maadaama madaxweyne Farmaajo halkaasi safar badan uu ka qasaariyay si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo ay 11kii bishan uu Farmaajo ka soo laabtay Asmara isla markaana uu kula soo kulmay dhigiisa Afwerki isagoona kala soo hadlay arrimo dhowr ah maadaama halkaasi wixii uu ka soo faa'iidaan la soo sheegin shirkani saddex geesoodka ama isbahaysigani ee saddexdani wadan ayaa iminka la ogeyn danta Soomaaliya ugu jirto maadaama safarkii ugu badnaay oo madaxweyne Farmaajo ku tagay dalkaasi Eritrea isla markaasina shalay ay ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku dhawaaqay in si degdeg ah halkaas la isugu yimaado madaxweyne Farmaajo ayaa isla markii amarkii qaato saagaalay halkaas u duulay ilaa iminka filla Soomaaliya ayaa iminka sheegaysa in arrimahaasi oo kaliya oo hadal halkaas u tagay madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee mucaaradka aad u xooggan ee ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay isla markaasina fasiraad si kala duwan ugu bixiyay xaaladda ayaa aad u cakiran isla markaasina madaxweyne Farmaajo waxa la leeyahay safar ayuu ku dhameeyay kharashaadka oo idil dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay nabadoon caan ah oo lagu magacaabo Cabdirashaaq Shabeel oo lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ka soo baxaya faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay nabadoon caan ah oo lagu geystay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn loogu argagaxay magaaladaasi dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay xaafadda Barwaaqo ee ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir iyadoona loo geystay nabadoon lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabdirashaaq Yuusuf Siicow Shabeel wararka ayaa sheegaya in koox hubaysani ay bistoolada ay wateen gaari ay ku hor jareen isla markaasina dilay marxuumka xilli uu ka soo baxay masaajidka ku yaala halkaasi ila wareedyo deegaanka ayaa warbaahinta u sheegaya in dableyda dilka fulisay ay gaari ku hor jareen gaari kale oo watay marxuumka kadibna ay ku fureen rasaas aad u fara badan oo ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa isla markaana uu ku geeriyooday isla gaariga dhexdiisa goobtaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in durbaba raggii ka dambeeyay dilkii nabadoonka oo caanka ahaa oo magaalada Muqdisho ay goobta isaga baxseen isla markaasina gaarigii ay wateen ku baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan booliska ayaa falka kadib meesha tagay waxaana xalay ilaa iyo saaka howlgallo ay ka wadeen xaafadda degmada Daynile ee gobolka Banaadir balse ma jirto ilaa iyo hadda cid gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga isla markaasina ay u talagaleen inay cadaaladda soo waafajiyaan dilka ayaa qayb ka noqonaya falalka liddi ku ah nabadgelyada oo muhiim ah
oo lasoo dhaafay siyaabo kala duwan waqtiyadii ugu dambeysay ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacayay xaafadahaasi ka tirsan magaalada muqdisho dilal qorshaysan isla markaasina dadka qaarkood aad u naxayeen si kastaba ha ahaatee nabadoonkani ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu ku geeriyooday dhaawacii xalay ama xabadihii xalay lagu furay dhinaca kale Sheikh Shaakir oo cadeeyay xilalka ahlu sunna ay ka doonaysa in laga siiyo galmudug isla markaasina doorashada madaxweyne farmaajo iyo khayra ay ka wadaan galmudug ay tahay mid aan soconaynin si kastaba ha ahaatee qorshe cajiib ah ayay soo bandhigeen ahlu sunna wal jamaa madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay inay doonayaan in ururkiisa ay jagooyin sarsare ka galmudug ka qabtaan isla markaasina horeyba ugu qaban jireen ayaa yiri waxa uu ka digay in haddii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dalabkeeda fulin weydo oo iyaguna bilaabi doonaan howlo ku soo dhisi doonaan maamul cusub isla markaasina halkaasi madaxweyne cusub ay ku soo yagleeli doonaan ahlu sunna wal jamaa waxay doonaysaa galmudug oo ay qabato jagooyin sarsare oo la mid ah kuwii uu ururka uu horay uga soo hayay maamulka galmudug si loo helo maamul midaysan oo lagu wada qanacsan yahay ayuu yiri Sheikh Shaakir waxa uu sheegay in xilalka ay doonayaan inay qabtaan ay yihiin kuwa ay ku difaacayaan kuna ilaalinayaan galmudugta cusub balse aysan dano gaar ah ka lahayn ayuu yiri waxa ka mid nahay oo yiri dadka ugu xaq leh ee hamiga ka leh inay xilal sarsare ka qabtaan galmudug waxaan rabnaa inaan deegaanka u ilaalino sidii u ilaalin jirnay xilligii aan ka qabanay oo wuxuu yiri xilligii aan ka qabanay ummadda ayaan ka difaacaynaa ee dan kale kama lihin ayuu yiri galmudugta cusub inaan ka noqono madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan intaba waa ka soo haynay ay haddana waan doonaynaa intii aan ka helno inaan ka qabanno ayuu yiri Sheikh Shaakir hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada galmudug ay diideen inay ka qayb galaan doorashada halka madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynihii hore xilka uu ka dhamaaday oo isna magaalada Gaalkacyo ka wado howlo u gaar ah oo maamul ku soo dhisayo isla markaasina uu rabo in halkaasi madaxweyne uu ku soo taago si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa go'dheer sii gashay isla markaasina xaaladdu waxay tahay washwash dhinaca kale isla galmudug ayaan ku jirnaahe odayaasha dhaqanka galmudug oo war-saxaafadeed soo saaray isla markaasina digniino culus soo diray odayaasha saxiixayaasha galmudug ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa ayna ka soo saareen war-saxaafadeed ka kooban 7 qodob oo ay uga hadleen xaaladda galmudug iyo doorashooyinkaasi war-saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay uga dalbadeen in la taageero xildhibaanada cusub ee galmudug sidoo kalena aysan aqbalin cid kasta oo balmarta dastuurka gumeelgaadka ah ee galmudug isla markaasina ay si caadi ah u soo qabtaan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la yiri gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay ugu baaqeen inaysan dib u dhigin xilliga loo asteeyay inay dhacdo doorashada maamulka galmudug oo xilligani oo khilaaf hareeyay waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka inay garab siiso habka dhismaha dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena ay ugu baaqeen inay doorashada ka qayb galaan musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo iminka qaadacay arrintaasi si kastaba ha ahaatee xiisada ka taagan galmudug ayaa aad u cakiran ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in la sameyn doono guddi xog ururin ah oo dhagaysta cid walba oo wax ka tabanaysa sida loo wado dhismaha galmudug hoosna ka xariiqay war-saxaafadeed ay ka soo saareen halkaas isla markaasina ay ku sheegeen cid kasta oo kasoo horjeeda maamulka in halkaas la soo taago si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa faraha kasii bixisay isla markaasina ahlu sunna wal jamaa ayaa iminka waxay taagan tahay inay gebi ahaanba arrintaasi ay ka rabtay xilal sarsare halkaan naga daawanaysaan waa cali sida media fadlan nala joog oo daawo warbixin xasaasi ah ayaa noo soo socoto
haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi thumma wallaahi wallaahi thumma wallaahi